dil wadareed aad u naxdin iyo walwal badan ayaa ka dhacay deegaanka Mississippi ee dalkaasi Mareykanka halkaasoo loogu geystay dil argagax leh ilaa 6 qofood qoys ka kooban oo uu ku jiro ilmo yar oo 7 jir ah waxaana lagu soo waramayaa in ay booliska u soo qabteen nin 24 jir ah oo lagu tuhmayo in uu 3 goobood oo kala duwan oo deegaankaasi ku yaalo uu ka fulay dilkan uu u geystay 6 qofood ee uu ku jiro wiilka yar ee 7 jirka ah waxaana lagu soo waramayaa dilkan intiisa badan in uu ka dhacay duleedka waqooyi bari ee magaalada Jackson ee dalkaasi Mareykanka taliyaha booliska deegaanka Clay Ede Scott ayaa isagu ku waramayo in ay gacanta ku soo dhigeen tuhmanahan 24 jirka ah ee lagu tuhmayo in uu dilkan u geystay dadkan 6 qofood ka kooban 3 goobood oo kala duwan oo deegaankooda ahna uu ka dhacay dilkani waxa uuna intaa ku daray taliya Clay in uu aad ula fajacsan yahay lana anfiriirsan yahay dilkan ula kaca ah ee uu kula kacay ninkan wiilka yar ee 7 jirka ah sanadkii hore dalka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen dhacdooyin gaaraya ilaa 408 toogasho wadareed kuwa oo ka kala dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaalo iyadoo dad badan loogu geystay dil iyo sidoo kale ay ka dhasheen dhaawacyo kala duwan oo dad badan soo gaaray sida laga soo xigtay kaydka xogaha rabshadaha ka dhaca dalkaasi Mareykanka sanadkan cusub ee 2026 oo ay dhowr iyo 10 cisho oo kaliya ka soo wareegatay ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen dilal toogasho oo waliba ah kuwa wadareed in ka badan 11 goobood oo ku yaala dalkaasi Mareykanka oo walwalkeeda iyo walbahaarkeedaba leh halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idin la socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine